ka ganacsiga sabuulka duban dad badan ayaa nolol maalmeedkooda ka soo saara. Halkan waa bartamaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, waxaana sabuulka galeyda ku duba qaar ka mid ah dadka danyarta si ay noloshooda ugu maareeyaan. Cabdirasaaq Cumar Maxamed Siyaad oo ku magac dheer Khamiis waxa uu ka mid yahay dadka ka ganacsada sabuulka duban ee noloshooda ku maareeya, waxaana uu sheegay in muddo badan uu ka shaqaynayay isla markaana nolosha qoyskiisa uu ku maareeyo. halkan waa suuqa galeyda koobadii waa 70 sabuulka waa 20 waa halkan ku soo dhaw waa suuqa galeyda xabadii 20 sabuulka 20 waa beec furan sabuulka dadku waxay u iibsadaan xabadii 20 15 senti 10 koobadii nus door 70 saas waa halkaas galeyda waxa laga keenaa quracley sabeelo dhulkaas halkaas doorkii 8 door ayaan ku geynaa markaas ka bacdi ayaan guriga siiraasana midkeed nolol biilkayna ayaa soo dhacsana caruurtan ku beeshta waa kaas door dhiton bilood ka shaqeyno amigeedo waxa waa ilaa nolol maalmeedkan ka raasana guriga ka siiraasana biilkayna waa keenna ilaas taal sidan la shaqeysaan bilidii walaalihii waa dhoobin naago dad badan waa ku shaqeysan waa buuxaan waa liibsada haka dad badan aad dib ka shaqeysta naago niman waqtigee hadda sanadkan waa tabcanta hadda kuwan biibaxad hordhici waa galeyda hordhiceedii waa tan kale waa dhimantahay waa ka waxaa ii joogta 4 caruur ay joogto qaar 3 waa yaryihiin kuwana waxay askool iyo dugsiga dhigtaan. Caqabada jirta ayaa ah in shilin Soomaali aanan wax lagu kala iibsan. 20 sent waa sabuulka hadda aan hayo. 20 maadaama 20 senti ay shilin Soomaali u magaalada ka jira sideeba hadda waa iska fiican biilkan waa uu keenay alxamdulillah rabbil aalamiin wax dhib oo la kulmna ma jiro shilin Soomaaliga dhibaatooyinka ku yeeshay ma wax dhibaatada waa diifisi waa iska dhaqanaa waa iska roona inta aan gadnaa markuu dumiyana 20 waa tan koobadan nus door waa ka marka markii halkan dhaqaale aad u badan ku jiro dadka kale sidaan oo kale doonayay Cabdiwaaxid Maxamed Aadan wararka dalkan UCV magaalada Beledweyne.